waxaa gudbay sanado badan waxaana uu nebiyullaahi muusa calayhi salaam ku koray qasriga fircoon isaga oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka ilaaliyey fircoon iyo qoomkiisaba dhibaatadooda iyo shartoodaba muuse meeyey ilaa saakit oo maqan yahay boqorkaygiiyo degdeg ha igu yimaado markuu soo noqdo waayahay هاي كان وموسى ويلك فرعون ووينادي waxaan maqlay fircoon inuu rabo mas'uul inuu ka dhigo wareer bani Israa'iil asaga inay mar walba caawinaad weydiistaan ma ogtiin intuu weynaadaba sidaas uu ahay waxaaba la sheegaa boqorka inuu aad u jecel yahay boqorkii jidcaduhu ku sii socdaa واري حابتنا وحاس كلا بقول كيف حاد وقاد ويد أبا هالكو طلوع تاس قدر ما هني غير بني إسرائيل وحياة دون ويهين بقولك دوك ميت قرشة قدر أديك أدونكم منه لكن واري أنا هو وحان ودوا بقولك روديك هال الطلمات تاس أدي شغلات هاي مركز أنا وكم ويجسني إن بقولك واحد ودبت أوكي وحير كور هذا واحد اسمي الله إذا حابة قاعد ده ها موجودة تاس وحي عدنا السا إن الشغلة أخوك بتارتا وارما أمر كي قاعد ديسا أدي كو تلا تاس سمع واحد سمعني ست قري أنكو قاعد بسكير دوك قاعد حافظ هذيك الوين قراعنا ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو نبي الله موسى عليه السلام وهو مقالة سوقلي وقت أيدت كيدا مساشا كجران وهو مقالة دحيدة كل لبنين أو إسايست أو دقال لميا ومتكود وإهل كيسي يهي وأوري بني إسرائيل يهي ككلنا وعدويسي يهي وحكى الموديستي كي إهل كيسها إنه أغهيل يكن عدويسه نبي الله موسى عليه السلام وحاو قلفته الفير كي عدويسها إسلام مركيبه وقلتين وحاو نبي الله موسى عليه السلام يري كان هو شيطان كعمل كيسا إساقنا وامد بادية يددك باديين آذو أذق waxaan maqlay in ninkii rootiga ii dubayay la dilay yaa dilay reer bani Israa'iil baa dilay waa inaan ka aarsanaa boqorow ninkii dilay waa in halkan la keenaa laakiin weliba kuwii goobjoogga ka ahaa la keeno laakiin qof arkaya ma jiro meel kasta ka raadiya waxaan aan rabaa in si dhaqsaa loo helo ninkii dilay warma aragtay ninkii dilay rootilihii boqorka askari waxa way anaga guriga isaga jirna maanta ilmaheena iyo xaasiskeena iskala joogno qorraxdaaba kulleed war adigana maya amba guriga joogay war adna maya qof aan arkaaba iska yar فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض
وما تريد أن تكون من المصلحين. وحاول نبي الله موسى عليه السلام كوا بريستي مغالدي إساقو بقيا ومركي بالله كل مي كي شليت أوهيلني أو أي سيستان متكليت أو قوم كفرعون وحكير نبي الله موسى عليه السلام كي قوم كرير بني إسرائيل شليت أوهيلني ورأدكم مدرب شغل عباطهي ويددك هذه قور سيستان مركي وسكدي إنه نبي الله موسى عليه السلام وكقفت متك قوم كفرعون إيه كوكر دروني وحويري متكو شليت أوهيلني قوم كرير بني إسرائيلها ورموسو ووحا دونيسا إناد يدشid sidaa shalayta u dishay naf adigu ma doonaysid inaad dadka wanaag u sameeysid ee waxaad doonaysaa inaad dadka isku kibrisid oo aad iska weynaysiisid oo muuse ma ogolaaday inuu isagu dilay haa wuxuu ka cabsanayay muuse wuxuuna u malaynayaa inuu asagana dilayo muuse ii keena haye sidoo kale ninkii arkayayna la ii keeno وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. waxaa magaalada dhinaceeda shishe ka yimi nin ordaya waxaana uu ku yidhi nabiyullaahi muuse calayhi salaam muusow qoomkii way kuu tashteen waxaanay doonayaan inay ku dilaan ee meesha isaga arar markaas ayuu nabiyullaahi muuse calayhi salaam ka baxsaday meeshii isaga oo geesa hadeeya oo aad u baqaya wuxuuna ilaahay subxaanahu watacaala ka baryey rabbiyow iga badbaadi qoomka daalimiinta ah 8 maalmood baad raadinayseen muuse welina maydin helin miya haa boqorow laakiin qofla ma yaqaana meesha ku dhuntay waxaa dhici karta inuu reer bani israa'iil ku dhex dhuumanayo guryahoo dhan waan ka baarnay markaa waxaa dhici karta inuu u cararay saxaraha askarta meel walbay ka raadiyeen wayna waayeen ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وحاول أجيست نبي الله موسى عليه السلام إنه آذي لنا مقالة مدين وحانا أويري وها رجيني إنه إلهي وهنوني وضغطوسا إيه سحظة markii uu soo galay magaalada madyan nabiyullaahi muuse calayhi salaam wuxuu ku soo hormaray ceelka magaalada madyan halkaas oo ay dad xoolo leeyihiin xoolahooda ka waraabsanayeen wuxuu meeshii kula kulmay 2 gabdhood oo meesha taagan oo aan iyagu xoolahooda waraabsanaynin wuxuuna weydiiyey sababta ay u taagan yihiin waxay yidhaahdeen aabahii waana weyn oo aan xoolaha noo waraabin karin anaguna ma doonayno inaan raggaan dhex galno waxaan sugaynaa haddaba intay ka dhammaysanayaan inay xoolahooda waraabsadaan iriga gadaal uga naqa meesha dee walaal waqti horaanu nimid shuqulku ma lihi imika waa markayaga iyo markaagii ma yaaya walla naaga ma ihidiin nimanku intay ka dhammaysayaan suga maalin walba miyaanu ku sugnaa intaad dhammaysanayso waa ogtihiina suga ewelba waa sugi jirteen laakiin maanta waqti horaanu nimid hadda he ununkaa nimida gadaal u noqda adhiga iyagaanu waraabsanaynaa marka hore dan iyo muraad midna kama lihin taas hool noo taala ma ahane erigiina maha ka leexsha layla inaga keen walaal xaggaas kaga sugnay sugi kari mayno waayo aabbaynu ka habsaamaynaa xilli horeynu nimid inagu maxaynu yeelnaa haddaba
maanta hooyo degdeg baa u soo noqoteen waxaana caawiyey nin oo adhiga noo waraabiyey oo muxuu ahaa ninku waxa uu u egyahay nin meesha ku cusub muxuu aabbihiin soo yidhi waxa uu yidhi waa inaan u mahadnaqna waxaa dhici karta in uu weli meeshii joogo weli ceelkii ayuu dul fadhiyaa haddaba gabadhaydii ay dhaqso oo aabbihiin waxa uu rabo samee waa hagaag waan u tegayaa oo waan u yeedhayaa فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. نبي الله موسى عليه السلام isagoo iska fadhiya ceelka agtiisii ayaa waxaa u yimi labadii gabdhood midood iyadoo aad iyo aad u xishoonaysa waxayna ku tiri waxaa ku yeeraya aabbahay si uu kaaga abaalgudo ama ajar kaaga siiyo waraabintii aad noo waraabisay ariga nabiyullaahi muusa calayhi salaam markuu u yimi gabdhaha aabbahood waa uu uga sheekeeyey wixii soo maray ee isaga iyo fircoon iyo qoomkiisa soo kala dhex maray wuxuu ku yidhi gabdhaha aabbahood nabiyullaahi muusa calayhi salaam waxba ha ka welwelin waad ka badbaaday qoomkaas daalimiinta ahe سبحان الملك القدوس رب العزة والملكوت سبحان الملك القدوس رب العزة والملكوت aabaheen waxa uu yiri waa inaan dibadda cunto ku siinaa ninka martida ah ma dibadda ayuu seexanayaa waxa fiicnaan lahayd in uu ninkani aabba u shaqeeyo waa nin wanaagsan oo awoodna leh aaminna ah sideed ku ogaatay inuu aamin yahay waxa uu diiday markii aanu soo soconnay in aanu horgalno sideed ku ogaatay in uu awood leeyahay waxa uu riixay nimankii ceelka joogay oo dhan gidigoodna wuu naga horwaraabiyey taasi waa akhlaaqda dadka wan wanaagsani leeyihiin waxaanan u sheegayaa aabbihiin قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. waxa uu ninkii odayga ahaa ee labada gabdhood dhalay ku yidhi nabiyullaahi muusa calayhi salaam waxaan doonayaa inaan labadayda gabdhood midood kuu guuriyo shuruuduna waxay noqonaysaa inaad ii shaqaysid 8 sano haddii aad 10 sano ka dhigtidna waa midaad adigu iska leedahay ee ma aha waxaan kugu khasbayo waxa aan rajaynayaa haddii ilaahay subxaanahu watacaala yidhaahdo inaadan wax dhibaato aygala kulmin muuse calayhi salaam ku yidhi ninkii odayga ahaa taasi waa ballan aniyo adiga inaga dhexaysa labada waqti 8 sano ama 10 sano tii aan dhammeeyano midkoodna dhib iguma hayso waxaynu ku hadlaynaa waxa markhaati inoogaa ilaahay subxaanahu watacaala رب العزة والملكوت سبحان
سبحان الملك القدوس رب العزة والملكوت سبحان الملك القدوس رب العزة والملكوت سبحان الملك muuse waxa uu aabba weydiistay in uu soo booqdo reerkoodii masar haa waan ogahay waxa dhammaaday 10kii sano ee heshiisku ahaa waa nin wanaagsan sidee hooyo markii uu 8 sano inala joogay ayuu aabbaha ku yidhi deynkaagii waan guday laakiin waxaan dhammaystirayaa 10 sano laakiin hooyo hee safuura arigaanu qaar rabnaa si aan ugu noolaano haa safuuroy waxa uu aabbaha u ballan qaaday ariga sanadkan dhashay oo dhan waad mahadsantihiin adiga iyo aabbaba فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. markii ay muddadii 10 sano ahayd ee lagu ballamay ay u dhammaatay nabiyullaahi muusa calayhi salaam ayuu wuxuu ka haysay reerkiisii wuxuuna la aaday dhinaca masar iyaga oo wadada ku sii jira ayuu waxa uu meesha door la yiraahdo agteeda ku arkay dab markaas ayuu wuxuu reerkiisa ku sii yiri halkan igu sii suga waxaan soo eegayaa dabkaasi waxaa dhici karta inaan khabar ama war idinkaga soo helo ama aan idinkaga soo xiro dhuxula dab ah رب العزة والملكوت سبحان الملك القدوس 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 رب العزة والملكوت فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. markii uu soo gaaray nabiyullaahi muusa calayhi salaam meeshii uu dabku ka baxayay ayaa waxaa loogu yeeray magaciisii markaas ayaa waxaa la yidhi muusow anigu waxaan ahay rabbiga ee bixi kabahaaga waxaad ku dhex jirtaa togii daahirka ahaa ee duwa aniga ayaa ku doortay maqal waxa lagu waxyoonayo waxaan ahay anigu allah mana jiro ilaah kale oo la caabudaa marka waa inaad caabudaa aadna xuskayga mar walba aad u haysaa سبحان الملك القدوس رب العزة والملك
هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku yidhi nebiyullaahi muusa calayhi salaam, muusow maxaa ku jira gacantaada midig? waxa uu nebiyullaahi muusa calayhi salaam yidhi, waa ushaydii, waan cuskadaa, arigaygana waxbaan ugu soo lulaa, howlo kaleeto oo ay ii qabataana way jirtaa. waxa uu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku yidhi nebiyullaahi muusa calayhi salaam, tuur ushaada muusow. nebiyullaahi muusa calayhi salaam ushiisii ayuu tuuray isla markiiba. waxay ushiisu beddeshay mas aad u weyn oo ordaya. waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku yidhi nebiyullaahi muusa calayhi salaam, soo qaada ushaada, hana baqin, waxaanu ku soo celin doonaa sideedii hore. waxaad gelisaa gacantaada garabkaaga hoostiisa, waxay soo bixi iyadoo ifaysa oo dhalaalaysa, wax dhibaata ana aan lahayn. taasina waa aayad kale. waxaanan sidaa u yeelnay si aan kuu tusno aayadahayaga waaweyn. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. waxa uu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku yidhi nebiyullaahi muusa calayhi salaam, waxaad tegaysaan adiga iyo walaalka idinka oo aayadahayga wata, hana ka daalina xuskayga oo mar walba haya. waxaad aadaysaan fircoon, isagu waa mid aad u xadgudbaya. waxaadna ku oranaysaan hadal debicsan. waxaa dhici karta inuu waantoobo ama uu cabsado oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka baqo. waxay nebi muuse calayhi salaam iyo walaalkii yidhaahdeen, waxaanu ka baqsannahay inuu nagu degdego inuuna ciqaabo ama uu nagu xadgudbo. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى